الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم waan salaamayaa shacabka reer somalilan guda iyo dibadba halkan maanta waxaan doonaya inaan fariin uga diro iskuulka abaarso iyo jaamacadda barwaaqo maxkamadda somalilan wasaaradda waxbarashada iyo waalidiinta ardaydoodu dhigato iskuulka abaarso iyo jaamacadda barwaaqo haddaan ku horeeyo boardka iskuulka iyo jaamacadda waxaan doonayaa inaan u sheego arrintan taagan miidiyaha dhowrkan sane ugu dambeeyeyba haysatay ee ka dhalatay ninkan koobar ee la keenay iskuulka abaarse ee lala sawiray gabdhaha yaryar ee reer somalilan waxaa marka ugu horeysa dembigeeda leh maamulka iskuulka ee keenay ninkaa qoomuluudka ah ee weliba ku xadgudbay shakhsiyaddii carruurta ee la sawiray ee social mediaha geliyey waxa weeyaan arrinkaas oo dhan idinkaa leh haddaad tihiin maamulkii jaamacadda iyo iskuulka waxaa iyana meesha ku jirta joy ciise oo ah baadiriyada ay caddaan tahay oo lahayo fidiyodeedii iyadoo diintii kiristanka fidinaysa inaad iskuulka keentaan qof fidiya diinta kiristankana waxa weeyaan waa wax caama oo adduunkao dhan ka mamnuuca dadka diimaha fidiyaa inay carruuraha iskuullada wax u dhigaan taa idinkaan idin leeyahay waxaanan doonayaa in aad gabadhaasina hadday weli joogto aad ka saartaan buuqana aad ka joojisaan shacabka reer somalilan kuna soo beddeshaan gaal iyo muslim kuwii doona ahaaday qof xirfadeedii leh oo aqoonteedii leh oo maamuli kara wax taasi waa taa raaligelinna ka bixisaan in aad dalka soo gelisaan dad fidinaya diimaha kiristanka oo ka mamnuuca dalka jamhuuriyadda somalilan dastuurkeeduna uu mamnuucay raaligelinna aad siisaan shacabka reer somalilan iyo waalidiinta carruurtooda idinku aaminay ee iskuulka keenay in aad ka bixisaan raaligelin haddaydan bixin intaa waxaan kaga gudbayaa maamulka boordhka iskuulka iyo jaamacadda waxaan doonayaa inaan la hadlo wasaaradda waxbarashada arrinkan buuqa ugu badan dhaliyey waxaa ka mas-uuliyadda koowaad leh wasaaradda waxbarashada oo ay ahayd inay iskuullada berefadka ah iyo kuwa dowladdaba ay eegto macallimiinta la keenayaa dad qualifyda oo la soo baaray oo ay tahay in la eego sida hay-adaha loo eegayo qof diinta fidiya in aan la keenin dalkeenna oo aanu wax shaqa ah ka qaban idinkay ahayd mas-uuliyaddiinna in ay maanta joy ciise ahayd gabadh baadariyada oo fidisa diinta kiristanka waxa weeyaan broofkeedii baa yaalla fideoyadeedii baa la hayaa waana wax shacabka reer somalilan iyo ummaddoo dhan ka dheragsan tahay fadeexadda ugu weyna waxaa leh wasaaradda waxbarashada waxaana la doonayaa wasaaradda waxbarashadu inay wax ka qabato dadka ay dalka keenayaan ee ajahanabkaa inay soo baaraan oo baaritaan ku soo sameeyaan waa mas-uuliyaddii koowaad arrintan dawakhisay shacabka reer somalilan